السلام عليكم ورحمة الله. برنامجka maanta ayaa waxaan uga hadlayaa sheekada ninkii indhaha ka neefsan karay iyo arrinta u fududaysay inay sidaas u samayn karo. balse marka hore arrin xiriir la leh oo aysan dadka badankiis ka warhayn ayaan ku bilaabayaa. waa maxay sababta markuu qofku ooyiyo uu sankuna u dareero oo waxa moodaa inuu sankuna indhaha la ooynayo? arrintan ayaa waxa anigu dareemi jiray markaan waddanka joogay oo dabaysha xagaaga gobolada qaarkood ka dhacda ay indhuhu ilmeyn jireen, markaasna waxaan arki jiray inuu sankuna buuxsamo. haddaba arrintan ayaa jawaabteedu tahay inuu xiriir dheeraad ah ka dhaxeeyo indhaha iyo sanka, oo daris kaliya maaha ee sanku waxyaalo dheeraad ah ayay indhaha u qabtaan oo ilinta qayb ka mid ah ayaa sanka aada. daqiiqad walba waxay dadku soo daayaan ilmo 2 microliter ah oo saliidaysa indhaha kana gurta qashinka iyo waxa dhibaya. il kastana 7 microliter ayay xamili kartaa. ilinta dheeraadka ayaa marka waxay indhuhu ku shubaan sanka oo waxa jirta tuubo ilinta ka qaada indhaha oo sanka geysa. tuubadaas ayaa waxa loo yaqaanaa nasolacrimal duct. marka ay ilintu isha banaankeeda u soo baxdo ayaa ah marka ay tuubadaas loogu talagalay qaadida ilinta ay wada qaadi kari weyso oo ay buuxsanto. waxayna timaadaa markuu qofku ooyiyo ama qoslayo ama indhaha wax ka galaan. xilligaas weeyana markuu qofku dareemo sanka ay ilintu soo galaysay. haddaba tuubadaas indhaha ka soo qaada ilinta kuna daadisa sanka ayaa xiriirisa labada xubin. marka waa dhici kartaa inaad sawiratid waxa fududeeyay labada nin ee aan ka warrami doono waxyaalaha yaabka leh ee indhahooda ku sameynayeen. ninka koowaad ayaa ah nin Turki ah oo saxaafadda caalamku 2004 ay ka warrameen inuu galay mawsuucada Guinness oo uu noqday ninkii meesha ugu dheerayd gaarsiiyay caano uu indhihiisa ka soo sii daayay. ninkan oo la dhaho Maxamed Yilmaz ayaa waxa uu awood u lahaa inuu caanaha uu indhihiisa ka soo sii daynayo uu gaarsiiyo meel ku dhawaad 3 mitir u jirta. caanahaas ayaa marka hore sankiisa ku qaadanaya, markaas kadibna uu samayn karaa inuu indhihiisa ka soo saaro. ninkan ayaa 3 sano ku tababaranayay siduu caanaha indhaha uga soo saari lahaa. markii la weydiiyay siduu ku ogaaday inuu awoodan leeyahay ayaa wuxuu ku jawaabay in 4 sano ka hor markuu dabaasho oo biyaha dhex galo ayaa waxa uu arki jiray in ishiisa bidix ay ka soo bixi jirtay hawo. markaas ayaa waxa uu dareemay in sankiisu wax u gudbin karo indhihiisa. ninkan waa ninkii rikoorka dhigay ee niman badan ayaa awood u leh inay sidiisoo kale sameeyaan oo caanaha indhaha ka soo saaraan ama ka soo sii daayaan. dadkan ayaan qaab dabiici ah aysan isugu xirnayn indhahooda iyo sankooda, oo amaba jug ha keento amaba ha ku dhasheene waxa isu furan indhahooda iyo sankooda. waxaana la mid ah nin Kanadiyaan ah oo la oran jiray Alfred Langevin oo dhintay 1974. ninkan ayaa awood u lahaa inuu indhihiisa ka neefsado oo waxa uu samayn jiray xeelado kala duwan. tusaale ahaan waxa uu soo qaadan jiray sigaar oo markaas indhihiisa ka cabi jiray sigaarkaas isagoo ka qaybgeli jiray sirkasyo badan. ninkaas ayaa sigaarka intuu isha ka cabo qiiqiisa wuxuu ka soo dayn jiray sanka iyo afka, taasoo macnaheedu yahay inay isu furan yihiin indhihiisa iyo sankiisa. ninkan ayaa wuxuu kaloo samayn jiray inuu soo qaato buufin ama balloon ayuu wuxuu ku afuufi jiray hawada uu indhihiisa ka soo saarayo. haddaba maadaama ay jirto tuubo ilinta qaada oo xiriirisa indhaha iyo sanka, ayaa dadkani waxa isu furan indhahooda iyo sankooda oo waxay leeyihiin meelo bannaan oo ay hawadu ama dareerayaashu soo mari karaan oo ay ka soo gudbi karaan sanka soona aadi karaan dhanka isha. intaas noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono. nabadgelyo. Assalaamu calaykum.